Reysal Wasare Xikeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ka hadlay munaasabadda maalinta deegaanka adduunka oo ku beegan 5 Juun ayaa ku baaqay in la isku xilqaamo hagaajinta deegaanka iyo dhirta si loo helo deegaan qurux badan oo nadiif ah. Reysal Wasare Xikeenka dalka ayaa sheegay in diqowga hawada uu si guud sanadkii u galaafto nolosha dad ka badan 7 milyan oo ruux kuwaas oo eersada ku noolaanshaha deegaanka wasaqaysan. neefsashada hawada wasaqaysanna ay ka mid tahay diqowga sababi kara qatarta caafimaad, dhibaato dhaqaale iyo badqabka bulshooyinka caalamka. xaaladda deegaan ee aynu ku sugannahay iyo sida deegaankeenu uu u sii baaba'ayo, u sii xumaanayo oo ay saameyn weyn ku leedahay isbeddelka cimilada adduunka iyo xaalufinta ba'an ee deegaanka lagu hayo. maanta oo kale caalamku ilaa 1974 waxaa la isla qaatay in 5 Juun la weyneeyo biicada iyo deegaanka sidii loo wanaajin lahaa, looga shaqeyn lahaa bilicda deegaanka, loo yagleeli lahaa shuruuc iyo qawaaniin xakamaysa baabi'inta deegaanka iyo xumeyntooda. waxa aynu la kowsanay xaalufinta dhirta oo ku haysa deegaanka baaba weyn oo xoogan. sanadkan waxaa lagu xusayaa diqowga ay cimilada adduunka ku hayso pollutionka ama wasakheynta cimilada oo ay sabab u tahay warshadleyda faraha badan ee adduunka ku soo fool ku shaqeeyaan maanta. waxaase la yaab leh Soomaaliya oo ah heerka warshadleyda adduunka ugu hooseysa oo aynaan jirinba warshada aynu leenahay oo la taaban kara in haddana ay saameynta ba'an ee ay diqowga cimilada ku hayso dadkeena caafimaad ahaan, dhirta, xoolaha, dhaqaalaha aynu nahay ka ugu horeeya Soomaaliya iyo Bangladesh labada dal marka la isku daro. jirista dhirta ayaa iyaduna oo dhuxusha loo bedelayo ayaa qayb weyn ka qaadanaysa in deegaankii uu baaba'o. in mar walba aynu kowsano oo aynu ku jirno xaalad abaar ba'an oo soo noqnoqota oo dhirtii iyo xoolihii iyo noloshii xaalufisa iyo marka roob da'o wabiyadii oo fataha, daadad fataha, iyaguna mar labaad dhirtii, xoolihii, dalagii, wax soo saarkii baabi'inaya. waxaynu u dhaxaynaa labada xaaladood oo dadkii barakicinaya, oo dadkii qaxoonti ka dhigaya, oo abuuraya xaalad mar walba ama abaar ba'an aan ku jirno ama haddii roob da'o ay wabiyadii fatahayaan, daadad fatahayaan, dad leynayaan, xoolo leynayaan, hanti badan baabi'inayaan. marka waxaynu u baahannahay dawladda iyo shicibba inaan gacmaha isqabsano. xukuumadda nabad iyo nolol iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo hormuud yahay iyo ra'iisul wasaaraha waxaa diyaar naga ah naga go'an in aanu adkeyno shuruucda iyo qawaaniinta lagu ilaalinayo deegaanka. laakiin shacweynaha Soomaaliyeed qof walba waajib waxa ka saaran yahay in qof waliba qayb ka qaato ilaalinta deegaanka. qoys kasta oo Soomaaliyeed inta kaga aadan ilaalinta deegaanka mas'uuliyadiisa uu qaato. dad muslimiin baynu nahay, nadaafadu qayb weyn bay ka tahay ilaalinta deegaanka. tan iyo sanadkii 1974 bisha Juun 5teeda waxaa loo dabaaldegaa dunida oo lagu xusaa maalinta deegaanka adduunka, taas oo looga gol leeyahay inay qayb ka ahaato wacyigelinta arrimaha deegaanka isla markaasna ay bulshooyinka caalamka sidii ay diiradda u saari lahaayeen dhibaatooyinka waaweyn ee ragaadiyay deegaanka. sanadka 2019 waxa uu caalamku isla qaatay in diqowga hawada uu noqdo dhibaatada deegaanka ee diiradda lagu saari doono xuska maalintan. cabdikariin shidane, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, magaalada Muqdisho.